qaban doonto mashaakilaadka ay ka sheegtay in ay ku saabsan tahay caruurta ku nool gudaha dalka Yemen oo aan muddo 5 sanadoodba dib loo eegin waxa ay xaaladooda ay ku dambeysay. Jaridda Washington Post ayaa qortay in lacagta $100 milyan qaybo badan oo kamid ah loo isticmaali doono ka hortagga cudurka coronavirus, iyadoo ay sidoo kale kamid tahay in wax lagaga qabto talaalka iyo nafaqada. xaaladda nafaqa la'aanta xilligan ay wajahayaan caruurta dalka Yemen, iyadoo aysan jirin xarumo lagu karantiili karo dadka uu soo rito cudurka coronavirus. muddada 5 sanadood ah dalkaasi oo ay dagaalada sokeeye ka jiraan, sida ay qortay jaridda Washington Post. jaraa'idkan ayaa soo qaatay hadal uu sheegay Ted Shaipan oo ah madaxa gobolka Bariga Dhexe ugu qaabilsan hay'adda UNICEF ee Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa ee ugu qaybsan dhinaca caruurta. waxaan uu yiri Yemen waa halka ay baahi badan ka jirto, 2 milyan oo caruur ahi ay nafaqa la'aani hayso kadib 5 sano oo dagaalo sokeeye. kala bar xarumaha caafimaadka aysan shaqaynayn oo ilaa iyo haatan laga baaray hal qof bukaanka coronavirus. awoodaha baarista ay xadidan yihiin, hay'adaha gargaarkuna ay cabsi ka qabaan in caabuqa uu sii baahayo iyadoon la ogaanin. Washington Post oo fasiraad ka bixisay sida loo qoondeynayo lacagaha $100 milyan oo ay dalbatay hay'adda UNICEF ayaa warisay in 29.4 milyan loo qarash gareyn doono taageerada bini'aadanimada lagu yareynayo saameynta faafista cudurka, kuwaasi oo ay ka mid yihiin nafaqada, adeegyada talaalka, dhismaha xarumaha karantiilka iyo tashiilaadka biyo wanaagsan iyo nadaafadda. wargeyska oo warinaya 218,000 oo caabuq oo laga helay guud ahaan gobolka Bariga Dhexe, oo 8,000 oo kamid ah ay ku dhinteen gudaha dalka Syria, ayaa qortay in WHO oo ah hay'adda caafimaadka dunida ay wajahayso dhaleeceyn guuldarro ku wajahan qayladhaan la'aanta fiditaanka coronavirus ee Bariga Dhexe, gaar ahaan deegaanada Kurdiyiintu ay maamulaan. warbixintaasna waxaa qortay jaridda Washington Post. haddii aan u leexdo dhinaca iyo wadamada khaliijka, mid ka mid ah jaraa'idada ka soo baxa The Gulf Today oo aan idiin soo qabtay waxa uu wax ka qoray rajo cusub oo war wanaagsan iyo yididiilo u ah dadka uu cudurka coronavirus soo ritay iyo kuwa ka cabsi qaba inuu cudurku ku dhaco. sababtana waxa ay tahay waxa hore loo sheegay in aanu cudurku lahayn wax daawo ah, laakiin warka wanaagsan oo ay jaridda The Gulf Today ay qortay ayaa waxa ay ku bilowday sidan. wargeyska The Gulf Today oo wax ka qoray rajada laga qabo daawo cusub oo loo helo cudurka coronavirus oo faraba'an ku haya caalamka ayaa qoray in howsha baarista ay tahay mid aad u firfircoon, gaar ahaan siiba tan ka socota gudaha dalka Faransiiska, waxaana ka qayb qaadanaya bukaan lagu qiyaasay 1,600. jaridda Gulf Today ayaa sheegtay war laabta u qaboojinaya dadyooga dunida, waxaana ay qortay in dadaal uu jiro iyo juhdiga daawada cudurka xeelleero Faransiis ahi ay kala shaqeynayaan dhowr dal oo Yurubyaan ah. cilmi baarayaasha daraseynaya caabuqa ay ka shaqeynayaan raadadka halista ah iyagoo raacaya 4 hab oo ay suurtagal tahay in loo helo daawo cudurkani, waxaana daawadaasi ka mid ah daawada lagu muransan yahay ee hydroxychloroquine. warsidaha The Gulf oo ka sheekeynayay tirada dadka u howlgalay ayaa bixiyay qiyaasta 3,200 oo bukaan gudaha Yurub iyo 800 ka mid ah ay joogaan dalka Faransiiska, dhammaantoodna yihiin kuwa ku jira cusbitaal iyagoo la ildaran xanuunka guud ahaan dunida. 150 mashruuc ayaa ka socda oo lagu baadigoobayo talaalka cudurka, waxaana ka mid ah Machadka Pasteur ee dalka Faransiiska
oo tijaabada tallaalka ku sameynaya bini'aadanka. warbixintaana waxay ahayd warbixintii ay qortay jirada The Gulf Today. haddaba ugu dambeyntii maxaan kaloo idiin soo gudbinayaa waa warka ku wajahan kii ay qortay oo ay si weyn u taabanayso dhinaca maada iyo waqti luminta xilliga dadku ay joogaan guryaha. waa warka wanaagsan oo ay shirkadda Facebook ay sheegtay inay u hayso dadyowga sida weyn ugu xiran ee caalamka. shirkaddan The Facebook ayaa sheegtay sida jirada The Khaleej Times ee toddobaadkan wax ka qortay arrinta application cusub oo ay shirkadaasi soo saartay. applicationka ayaa waxa uu marayaa heer si weyn oo firfircoon ay dadku ugu biirayaan isla markaana ay uga mid noqonayaan. waa hab muuqaaleed aad u xiiso badan oo ku sahlaya mobilkaaga gacanta inaad applicationkaasi ku isticmaashid. waxa ay shirkaddu ay sheegtay in uu kal hore ahaa mid bilaash ah amaba wax lacag ah aysan ahayn in aad ku bixiso, balse shirkadda The Facebook waxa ay ugu talagashay in dadku ay ku qaataan waqtigooda xilliga ay joogaan guryaha. sababtoo ah barnaamijka gurigaaga joog markii uu soo bilaabmay, shirkadda oo damacsaneyd inay soo saarto bisha 6 ee sanadkan 2020 barnaamijkaasi oo ay juhdi badan ku bixisay, lacago fara badanna ay ku maalgelisay, ayaa shirkaddu waxa ay bilowday inay dhaqsadiiba soo horumariso. maxaa yeelay fahan la-aan ayaa ka jirta waqtiga rasmiga ah ee uu corona soo gabagaboobi doono, xilli dadkuna ay weli ku sugan yihiin guryaha iyaga oo qaadanaya talooyinka dhaqaatiirta ay siiyeen si loo joojiyo fiditaanka cudurka coronavirus. hab muuqaaleedkan oo qayb ka ah cayaaraha ayaa kaalin fiican waxa uu ka geli doonaa hanaanka maadeyska amaba madadaalada ee Facebooka uu inta badan ka saacidi doono dadka sida xoogga leh u isticmaala. majaalada The Khaleej Times ayaa qortay in si mowjad ah ay u socoto hawsha cayaarahan oo ay dadyo badani si weyn uga qayb galayaan gudaha bulshada caalamka, gaar ahaan xilliga cudurka coronavirus uu ka jiro, iyadoo dadka intooda badan ay joogaan guryaha. sidaa darteed Facebooka waxa uu wadaa applicationkani oo loogu talagalay in lagu dhiso ama wax lagu abuuro, iyadoo sidoo kale si toos ah looga daawan karo cayaarta ku dhex jirta ama gameka laga heli karo gameplayga. applicationkan waa mid loogu talagalay mobilada gacanta. waa mobile Facebook gaming application oo lagu wado in Facebook ay soo dayso dhowaan. shirkadda Facebook ayaa wada qorshahan oo qayb ka ah sida ay sheegtay shabakada bulshada. applicationkani oo ah mid bilaash ah ama lacag la-aan ah ayaa dhowr sanadood ay shirkadda Facebook maalgelinaysay, waxaana ay sheegtay in ka badan 700 oo milyan oo ka mid ah 2.5 milyan dadka bisha isticmaala gamekani ee iyagu horay ugu biireen, isla markaana ay ka mid yihiin cayaarta gamekani oo ah mid si aad ah oo xoog badan uga socota dhinaca online-ka oo ay Facebooka kula dagaalamayso aaladaha kale sida Amazon, Twitch-ka, YouTube-ka, Google-ha iyo adeegyada kale ee ku jira Microsoft-ga. iyadoo dunidu ay si weyn ugu boorisay amarka ah in la joogo guryaha xilliga uu jiro fiditaanka cudurka coronavirus, ayaa 106 milyan oo ka mid ah cayaaraha ganacsiga gameka oo ay dadku si weyn ugu madadaashaan ayaa la sheegay in si baaxad leh ay uga shidan yihiin gudaha dadka isticmaala aaladaha social mediaha ee mobileka, waxaana si weyn u camiran dadka maalin kasta ka mid noqonaya iyagoo baadigoobaya ay ku lumiyaan xilliga dheer oo ay aqalada joogaan. Facebook ayaa markii hore damacsanaa in uu sii daayo applicationkan bisha June ee na soo aadan, waa bisha 6 ee sanadkan 2020, laakiin waxay shirkadda Facebook go'aansatay
in ay si dhaqsiyo badan qorshahaasi wax uga bedesho xilliga dadku ay ku jiraan karantiilka guryaha oo aanay kala caddeen ilaa ay wakhtiga dadka ay karantiilkaasi ka bixi doonaan karantiilkaasi oo ah talooyin ay soo rogeen dhakhaatiirta iyo xeeldheerayaasha caafimaadka isla markaana ay hay-adda caafimaadka adduunka talooyin ay ku leedahay si looga baaqsado inuu cudurku ku sii fido bulshada dhexdeeda. iyada ayaana ku soo gabagabeynayaa xubintii wargeysyada ee barnaamijka toddobaadkan ee wargeysyada iyo waxa ay qoraan oo aad kala socoteen telefishinka iyo raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya. anigoo maxamed nuur macalin ayaa halkan idinkala socodsiinayay isla markaana isha idin soo mariyay idina soo saaray. tan iyo markan dib ugu kulmi doono barnaamijkan kiisa kale toddobaadka soo socda hadduu eebbe idmo. waa anigoo ah maxamed nuur macalin iyo cusmaan sheekh nuur abke iyo farsamayaqaanka barnaamijka dhinaca editinka waa Mr. Saalax oo idinkiga tagaya sidaas iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe iyo muuqaal dambe oo xiiso leh.